كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا maanta waxaan ka shaqeynaa laabkeena afar configuring NAT overload solution kooda waxaan odhanaysaa assign IP addresses and connect devices as shown. The commuters can be configured via DHCP or statically. ama DHCP waa inay routerka kasoo helaan IP addresska by ay routerka u qaybiya ama static buu gelgeliya marka static baan u gelgelinaa si aan noogu sii dheeraan DHCP inoo soo dhiganay waa kuwan marka in waxaan gelinaa routerkan ay CLI no marka interface-ka san ka horeynaa enable configure terminal interface-kiga internet 0/0/0 IP address baan soo siinaa 192.168.1.1 255.255.255.0 shut down exit interface giga ethernet 0/0/1 IP address baan soo siinaa 200.1.1.1 255.255.255.0 shut down kan ISP gii uu nooga dhigan yahay routerka ISP ga no enable configure terminal host name ISP hadda waxaan interface giga ethernet 0/0/0 IP address baan soo siinaa 200.1.1.32 255.255.255.0 no shut down waxaa buuxda inoo noqday aan IP address baan soo siino desktop IP configuration static by 192.168.1.content default gateway gana wuxuu isticmaalaa 192.168.1.1 computer kan gelinaa desktop IP configuration 192.168.1. copy content 192.168.1.1 marka computeradu way spin gareyn karaan pin 192.168.1. content spin gareyn karaan daway su'aashina labaad configure default route to the internet ISP route oo ah 200.1.1 disconnectivity internet and from router using ping way exit default route value router and IP route marka waxa jira static iyo default marka kiiba nagu yirina default route nagu IP route oo any IP version 4 0.0.0.0 while maskiisuna yahay 0.0 waxaad u dirtaa 200.1.1.2 inkadan nidhaabeen 200.1.1.2 u bingareynaya way computeradani hadaba ma bingareynayaan 200 xagga ma gaari karaan ping 200.1.1.2 because the timeout mid kala hadan ma gaadhayo waayo de kani waxa weeyaan waa private kana waa public marka isma gaari karaan interface kan uu bingareyn karaa laakiin kan uu bingareyn karaa de waa kii routerkiisa laakiin inter dibadda ma bixi karo waxa lagu yiri test connectivity from computers to the internet. Are they working? Why or not? Or why not? Computers kan ma bingareyn karaan internetka oo 230 ma bingareyn karaan waayo
waayo de kani waa private kana waa public marka dibadda uma bixi karo. way ku sixita configure net overload to use fast internet 0/1 fast internet 0/1 kaas ku overload gareeyo ib net verify net is functioning using relevant show commands. way commit waxaan galnaa routerkan waxaan horta access list baan isticmaalnaa access list 10 waxaan permit baan odhanaa 192.168.1.0.0.0.255 oo wildcard maskiya. marka waxaan kan odhanaa ib net inside source. marka waxaan isticmaalnaa list 10 marka interface-keeni waan sheegnaa interface giga ethernet 0/0/1 oo kaasa overload baan odhanaa overload. marka imika interface-yadan galna interface giga ethernet 0/0/1 ib net outside baan odhanaa. kani waa outside-kii kana waa inside-kii. waa muhiim inaad barto intaas. interface giga ethernet 0/0/0 ib net inside imika download oo kaas oo bin garan kara haddaan eegno halkan show net translations show ib net translation oo kaas icmb waa bing 5 bingi baa dhacday. waxaa soo bin gareeyay 191.50 marka waxaa loo bedelay lagu rogay 201 inuu bin gareeyo kale. waxaana la bin gareeyay 1.2 inuu kan oo kale bin u bin gareen karaa oo kaas icmb 150 bin gareey. waxaa loo rogay 200.1 wuxuu bin gareeyay 32 kaas. su-aashiina ugu dambeysa waxaa lagu yidhi convert net configuration to overloaded net pool using range 201 ilaa 205. ay marka hore netka baan ka masaxaynaa. kaasaan ka masaxaynaa meesha si aan pool u baahnayno. waayahay wuxuuna yidhi convert net configuration to overload net. marka netkii meesha waan ka saarnay waxaan odhanaa ib net pool baan odhanaa. magac baanu sameynaa ccna. halkii baan ka bilaabaynaa 200.1.1.2 halkii baan ku dhamaynaa 200.1.1.5. net maskigiisu waa maxay? waa 255.255.2.0. net maskana waa inaad sheegtaa. imkaan odhanaa ib net inside source list 10 waxaan odhanaa pool baan odhanaa ccna. imika haddaan eegno show ib net translation weli waxaa meel isku bedlin show net show ib net statistics. haddaan imika kan bin garayno 32 ma bin garaysmayo.
حوير خلدان أي بول ccna overload من هالكا كيرا تكنال كاس overload كتكناي تاني ممكن سيدان الان overload كاسن كتكناي مركا عنس IP net inside source listigi wa access listigi marka hore waxa oran interface fast internet magayga internet overload imka arna pool ccna overload marka hore overload baan ka tagay waa kaas showranti overload hatta nimka eegno haddaan combine garayno aan eegno okay show IP net translation is haddaan eegno kaas 192.168.1 waxa oo inside local oo dhinacna waxa loo bedelay ay dibadda uga baxaysaa 200.1.1.2 way kan kalena aan eegno kan kalena intuu dibadda uga baxaya kan bingarayn maayo maxaa ka siya marka ruska diiday ma ka waxayaan caadi weeyaan way hadan nidhaahna halkan show IP net translation soo arkaysa 1.content kii maxaa loo kooyay content maxaa loo bedelay dhibic 2 baa loo bedelay dhibic 2 haddaan doonayno inaan mid kasta mid ku maab garaynana node cannot be removed markii hore inaan ka saarnay hayd laakiin ma dhow marka ka saartay haddaad overload ka reebtid 3 guna mid buu qaadanayaa 2 guna mid buu qaadanayaa